xog cusub cudurka coronavirus yaa sameeyay halkeena lagu sameeyay goormaana la sameeyay howshiisu goormay bilaabatay in la sameeyo dalweynaha Mareykanka 44 sano ka hor wuxuu ugu hanjabay dalka Ciraaq in uu coronavirus ku abuuri doono dalka Ciraaq dadka reer Ciraaqna uu eber ka dhigi doono asoo uu adeegsanay nuclear ama wax kale inuu adeegsan doono cudur ilmo qabata ah oo la yiraahdo coronavirus wuxuu u goodiyay dhaqaatiirtiisa biologiga saynisaanada Mareykanka inay awoodaan inay soo saaraan cudur aan daawo lahayn marka waxaan nigu xirayaa qodbada Saddam Hussein oo xilligaas u jeediyay saraakiishiisa waa video sir ah marka waxaan iga codsanayaa inaan si wanaagsan u daawataan qoraal af Soomaaliya la socdo marka qoraalkaas af Soomaaliga ah هسه شنو احنا يقولون اكو كورونا واكو فيروس يعني سألت بعض الرفاق قلت لهم شنو هاي الفيروس شنو الكورونا اريد واحد يفهمنا بيها قالوا سيدي هي الفيروس يعني يصيب الانسان ويهاجمه وبالتالي يقضي على حياته ووقف له جهازه التنفسي قلت له مالي خنقه يعني يلزم اخواني يقوم مثلا رقبته قالوا لا قلت لهم لا شنو هو الفيروس له خشم له حلق عيون قالوا لا سيدي الفيروس ما ينشاف الا بالمجهر يعني رأسا اتنخد قلت انا خذ له يعني العراقي اللي ياكل بشر يخاف من شيء ما ينشاف إلا بالمجهر هي هاي المرجلة هي هاي الزلم مش وقت تهدس شواربكم وما تخافون من الكورونا مع الأسف انتم أحفاد القعقاع تلبسون كمامات قبل لحظة أنا اتصلت بالرفاق الأبطال قلت لهم شنو موقفكم من الفيروس أريد موقف جدي قالوا لي سيدي احنا جاي نتعشى زلاطة مخلوطة بالفيروس بالكورونا قلت لهم عافية يعني ما تخافون منه قالوا لا احنا ترباتك احنا ابناء العراق ما نخافوا من الفيروس الكورونا اينما كان او يكون وبالتالي يعني دائما أوجه بعض الكلمات للأخوة من الشعب ونقول لهم sidii aad maqlayseen madaxweynihii dalka Ciraaq Saddam Hussein wuxuu sheegay 40 sano ka hor cudurkan inuu ahaa cudur jira ah oo horey loogu goodiyay isla markaana magaciisa xataa la shaaciyay marka maanta qariib ma ahan dadkii